بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سومالي محمدي. إلهي ما شان جوجنا بالله نبت بريسيو إن شاء الله. أنت بقت الله نعافيه. أنت دمتنا الله نحريسته. أنت جال كجرتنا إلهي هو الصغير إن شاء الله. وأذن سلامي أنت سومالي أو أمد النبي محمد أو إذل ونسنا قانو وأوض سلامتين إن شاء الله. أنت أنا أقولن بقى سلامك بعد كذا ما أنت وحا أركي كليبير ومال السوق ليي أو لوجه الله عيارتوي دي سوماليا أو يركي ما شاء الله. إلهي يقول هالسيو إلهي إذن كيس ودعيني نانو إذل وما عرفتي قولش هالسيدة وقانتو دلناي أو سوماليات إن أو ما عرفتي si aanan wanaagsanayn looga soo dhaweynin gobolku asaga ku dhashay oo ka soo jeeday inaanan si fiican loogu farxin ama guusha uu soo hooyay aanan maaragtay waxbana loo arkin. hooyadiisoo aad uga hadlaysa ayaan meeshan ka arkay. marka Soomaali ma jirto, gabadhaasaan la hadlayaa in yaraan ku leeyahay walaalay horta Soomaali ma jirto. Soomaali ilaahay haddaba qabta god bay ku socotaa, godka Allah ka soo celiyaan leenahay. marka hal mid aan ku leeyahay, hal mid ayaan ku leeyahay. waxaa la yidhaahaa shaqadiga ma ogiyo qarqarka maaragta guusha u gaaray wiilkaada ha arkine dhibaatada loo geysan doono oo ka dambe ka fiiri, iska ilaali, yaanan lagu holligi wiilkaada cisho. waxbana yuusa dowladdu ciyaarin, waxbana yuusa isa soo caanbixinin. ha kuu badbaada nafsadiisa, ha kuu badbaado. meeshaan la iscunaayo oo kii madaxa soo qaada oo wax buu bartay la yidhaahda, ama kii wax buu gaaray oo magac buu yeeshay lee madaxa laga jarayo. dee Soomaali waa loo yaaban yahay. Soomaali waa loo yaaban yahay. Soomaali waa loo yaaban yahay. walaalay macaaney wiilkaada haddaa yacni looma dabaal degin leh ay ku xiran tahay. dabaaldeg waxbana ha ku falin. shalay ilaahay baa ku siiyey, saad ku soo korsatana ilaahay baa og. wiilkaada cisho intaasun baa ma ku leeyahay. waxaa loo celinayaa kuwa madaxa laga jarayo ma aragtay shalay lalahay loo dabaaldegay kama wanaagsan wiilkaada. kuwa wiilkaada hortiisa loo dabaaldegay kaas kama wanaagsana. Soomaali kii madaxa kor u soo qaada ayaa madaxa lagu dhufanaya. marka wiilkaadani waxbana yuusa si soo caanbixin, madax ayaana lagu dhufan. marka wiilkaada ilaahay ha kuu badbaadiyo, ilaahay ha kuu badbaadiyo. marka ilaahay ha kuu badbaadiyaan leeyahay. dee markii horena nin ku rabayba male runtii. waxay Soomaali ayakiaba kuwii waxaan nahay lafweyn baan nahay iyo reer hebel baan nahay iyo reer dhuljax iyo reer marooriridaan nahay lahay. marooriga ma dhihi kariye waxaas, marooriga ma dhihi kari waxaane. marka ayakiibaaba isku leexday oo jufo iyo laflaf iskugu leexday. marka hadda wiilkaada meesha warba kama leh. ilaahay xaggiisu darajo kale ee darajadu ilaahay u qadarina waa mid u gaari doono. yaa lagaa dilin walaala, ilaahayna ha kuu samata bixiyo. wiilkaas guushuu gaarina mid ay marad saaran tahay ma aha. ilaahayna ha guulaysiyo, ilaahayna gacan adow ha ka qabta. laakiin waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya qofkii ku nool oo guul gaara in la qarjicinayo. Soomaaliya qofkii ku nool oo guul la taaban kara gaarahayo ama socdo ama soo caanbaxa ina qorta loo jarayo. ilaahaydan ka badbaadiyo. marka waxa waaye wadanka raggiisa, rag iyo naagaba waa la isgarabsadaa. wadanka qofkiisa markay indhahaada taagan yihiin oo indhahaada shanta yihiin oo taagan yihiin oo aad arkaysa waxa kugu soo socdo ood iska moodo. laakiin haddaan arkaya oo ma aragtaaye wax cuntaanba ma ogi meel kaleba aanan u jeedin, dee dhibaatay leedahay. marka ilaahay ha kuu badbaadiyo wiilkaada, ilaahay ha kuu badbaadiyo. guushuu gaarinna ilaahay baa gaarsiiyey. jacayl balaa-aadanna kuma gaarin, nacayb balaa-aadanna wax kama reebi karo. gabadhaas aad bay calancashalaa ay u hadlaysay. laakiin alxamdulilaahi dheh walaalay, hadalkayga hadduu ku soo gaaro
alxamdulilaahi dheh wiilkaada ilaahay guushaas gaarsiiyey haddaa lagu riixana kuma guuldaroobaysid haddaa lagu taageerana kuma guulaysanaysid guusha xagga ilaahay bay kaaga qoran tahay ilaahay agtiisa ayay guusha kaaga qoran tahay maalinkuu ilaahay inaad guulaysatay ilaahay kugu talagalana waad guulaysan doontaa marka wiilkaas waxaan leeyahay eedo ilaahay ha ku ilaaliyo ilaahay ha ku ilaaliyo ilaahay ha ku ilaaliyo kubaddaas aad ciyaarayso ood ma aragtaa ee aada guusha ku gaartay ilaahay ha kugu ilaaliyo nafsadaadana allah ku badbaadiyo waayo lagumaba ogolaba waa la is ogyahay meeshaan macal ma aha yacni qabiil ahaana loo dili doonaaba malihiba soomaaliya oo idilba kii madaxa kor u soo qaado baa la dilaa kii madaxa kor u soo qaado oo heer soo gaaraba waa dilaan ma aqaano wax meeshay ka socoto oo iska qaban laada waa garan lahay ya meel turub lagu dheelaya noqotay marka ilaahay ha ku badbaadiyo wiilkaadaan leeyahay intaasaan uga baxay alxamdulilah ilaahay caafimaad waa na siiyey maasha allah tabaaraka allah ilaahay ilmaha noo dhowro meel kasta oon joogna ilaahay ilmaha noo dhowro ilaahay allah ilmaha noo dhowro inaan bad kala galo ma rabo waxa waaye bad haddaad gasho waxa waaye waa lagu taabana adigana laysma taabta meeshaan marka insha allah anigana faatixada ii soo maro ninkii igu soo wajahan ilaahay inuu iga qabto ilaahay inuu iga qabto waayo ninkii igu soo wajahan ilaahay inuu iga qabto wallaahi taleefon baa nafta ii keenay berigii hore aad baaba liisoo wici jiray laakiin hadda maalinkiiba hal mar ayaa liisoo wacaa maraha qaar maalinkii ama labadii maalin hal mar ayay soo wacaan waana isla lambarkii isoo wareerin jiray waaye marka waxbana uma arka aniga geeridana hadday ii timaado alxamdulilah waa xaq maalinkaan leeyahay in liiga soo soko marinayno aan ogahay oo waqtigayga aan qof kale ii jiifi karin geeri wax jecel ma leh nafta in laga qaado qof jecel ma leh nin kastana way ku timaadaa waxaan aaminsanahay hadday ugu timaado meel kasta oon galo inaanan ku baxsanaynin baan aaminsanahay laakiin markii qof asaga danaysto ah oo neef ah marka wax lagugu dhiibo oo la yidhaahdo warkiisana waa soconaya oo warkaada soconi waaya oo maaragtay war meeshaan haddaad luuqadda aqaanin meeshaan ummadda waa liisu adeegsaday balaayaa ka taagan qof aamine aysan jirin qofka guriga kula jooga ee aaminin qofka guriga kula degan aaminin dadka waa laga been abuurtaa war aan macno lahayn oon ma aragtay hore iyo gadaal raad hore iyo dambaba aan lahayn baa dadka laga gudbiyaa war xuno idil baa lagaa gudbinayaa qof dadka waxaa jira dad ay luuqadooda hadalkooda uu soconaayo oo adigana kaadana ma soconaayo waayo luuqadna ma taqaanid waddankana ma taqaanid systemkana ma taqaanid marka dad la adeegsadaa jira qofka hadduu ciil kuu qabay haata waa ku dulminayaa waayo cid jackaa dhaysa male dulmigaas loo geeyo dadkaana yaqaana haddaa qofka dulmi loo geeyo dulmigii loo geeyo kugula dhaqanaya wallaahi been idin ma sheegaayo qofka waxaa waaye ma yaqaanaan dadkan dulmigaad qofkaas waxay moodayaan dadkanba inay isku wada fiican yihiin laakiin qofka wuxuu samaynayaa inuu ku dulmiyo hadduuba xarash ku haayo waa ku dulminaya dulmigaas u geynaa dulmigaasaana kugu soconaya oo dembi ku ahaanaya marka iska ilaaliya soomaalida dhexdeeda laisu adeegsadaa soomaalida dhexdeeda laisku dilaa iska ilaaliya qof aad aamintaan iyaysan jirin ani intaan idin lee waa intaas qof bani aadan ood aamintaan yaysan jirin waxa waaye haddaa sida la raba lagaa heli waayo wax kasta waa lagugu adkaynaa lagugu dhudhuujinaa dhab laakiin ilaahay xaggiisa waxbana kama adkaysno alxamdulilaahi raxmaanilcaalamiin dhaha iska jira dadka waa laysu adeegsadaa yaana ma aragtaayo been lidinka haata dad qof waxbana ma baari kartiine meel kastana ha iska tegina oo ma aragtaaye socialkiina iyo sharciyihiina dad ma aragtaaye aadan hubin ha u dhiibanin dadka qofkaad lahayd qofkan waa aamin aad lahayd ood garanaysi hadda ogow haddee kulama shaqeeya ogow qofkaadi maaha waa qof adiga lagaa soo adeeji
hadduu xarash yar ku haayana wuxuu raba kaa gudbinayo hadduu xarash yar qofkaas ku haayo wax allahi wuxuu doono ayuu kaa gudbinaya been iyo run buu isku darayaa ama 100 cunug haysa ama 30 haysa aday kuu taallaa sidii lagugu dhibaatay lahay uu falkeeda qabanaya waana lagugu dhibaataynaya marka iska ilaaliya dadkan waa Soomaali inaad dhahdaan ha isku sii daayina Soomaalida magaca Soomaaliya laga wada yahay laakiin 12 midab ayaa la kala leeyahay qalbi ahaan liskuma xirna diin ahaan ahaatee diinta qofka Soomaali uu yahay laakiin inuu kul diin yahay ina kala ma ogid marka waxaa laga yaabaa gaalkaas dhibaato uu ku geysanin intuu qof Soomaali uu ku geystay qofka gaalkood ka cararaysa 100% ku roon maxaa dheh waxaa laga yaabaa inaad si toos ah doola hadashay inuu balaa'adanimada uu tacgeliyo laakiin kan Soomaaliga ama reebel waayo ku dila ama xarash hal maalin qalad ka dhacay ama wax yarood is afqabateen ayaa maalinba hadda asaga uu arkay in warkiisa uu soconayo oo jagay meel yar oo wax yar ama jaajuus ba laga dhigay wixii la rabaa laga dhigo waxaasuu kugu dilayaa waxaasuna kugu itaagaya iska ilaaliya anigu warkayga ma qarsoono waxaan qarinaayana ma laha Soomaalida waa liisu adeegsadaa Soomaalida waa wada ruufiyaan qaar baa ruufiyaa ma ah iska ilaali bareedlaan socon waa walaalka inaad tiraahdo ha iskaga dhaxdhicin waayo dhibaato ka gaari karto dhibaatada way badatay Soomaalida dulmiga la isku hayay baabatay gaaladii waxaas waxbana kama oga wadankaanayta dadka waa lagu keenay waa lagu soo caawi laakiin kullu luqad ma kuma yaqaanaan kan lagu soo hagaagsanaya oo hudhudka ah kaasaa ku dilaya iska ilaaliya turjubaanada iska fiiriyo meelaha tagaysiin oo leeyahay community-ga waa iska ilaaliya wax badan iska ilaaliya dad waxaa jira haata kula sheekaysanayo lagu soo diray oo caadi inuu yaad oo nin le naag leh iska ilaaliya waxaa soo kala watana haata inaad iska ilaalisaan waayo dhibaatadii baa badatay dulmigii baa batay dulmigaas iyo dhibaatadaas waa ina aad indhaha aad kala furtaan oo dulmigaas aad iska ilaalisaan waayo noloshaada cid rabta male qof Soomaali oo qof kale noloshiisa raba male qofka bani'aadanka maanta markaad labadaada lugood ama caafimaadkaada aad caafimaad soo yeelato caafimaad darro siduu kugu ridi lahay oo ka shaqaynaya ha u malayna inuu caafimaadkaada hata ka shaqaynaya iska ilaaliya dadka nahabiinta oo luqadda soo bartay oo ma aragtaaye Allah iyo rasuulna aanan ka cabsanaynin bani'aadanimadana aanan aqoonin iska ilaaliya waxaa jira wax bani'aadanimada oo hata gaalada dadka gaalada oo wadankan jooga qof moogi bani'aadanimada hata yaqaanaan laakiin midka adiga oo dhiigga kula sheegto oo midabka kula wadaaga oo diinta kula sheegto oo wadankaad isku lalateen kaas ugu xun wuxuu ugu xun yahay kaas waa ku wada iska ilaalinaysid waxaad doontaad iskaga hadlaysaa waad iska hadlaysaa caadiyaad u tahay intaad u sheegtay iyo in kale ku kordhina intii oo la tagaa marka intaad adiga u sheegtay in kale saara intaad u sheegtay in kale isku dhufanaa wixii adil waa u geynaya adiga maskiin Allah u maqan indhaha taagaysaa luuqad ma taqaan waxa taqaana mal waa lagu amaanaa sida la rabaa laga yeelanaya waxa way dadkan tanker waxa oo qofkaad yaaba soo yiree ay ka waxbana kama gelin waxaas halka ilaahay inuu ku micno moogi wax ka galay male marka iska ilaaliya dadka anigoo kaloota ah masaakiinta ah oo luuqadda aan aqoonin oo systemka wadankan u yeela aanan si fiican u aqoonin iska ilaaliya yaanan lidin dhibaataynin anigu dhibaato waa igu dhacday ilaahay baana u sheegtaa dhibaatada anigu u dhacday ka digtoonaada iska ilaaliya qofna ha aaminina cunugaada haate haddaad aragto dhaqdhaqaaqiisa ha aaminin asaga laftiisa iska ilaali waayo ilmaha wadankan ku koray haata anaa dhalay inaad tiraahda ha u babacdhigaya ka ablaftada ku simaynayo ma garat iska ilaaliya marka waxa waaye aad iyo aad inaad isu ilaalisaan waaye anigu kolba horta alxamdulillahi rabbil caalamiin aad baan u dhibaatooda laakiin waan fiicanahay hadda waana shaqaystaa
inkasta oo xanuun badan aan dareemo jirkayga aan ka dareemo oo i xanuuno aad ii xanuuno meelaha qaar aad ay ii xanuunaan haddana waa shaqaystaa alxamdulilaah dhibaatadii hore wax kasoo kabsanhayaana ahay ilaahay baana mahaddaas ay u sugnaatay ilaahaygii iyo abuuray ayay mahaddaas u sugnaatay cid kale oon ku mahadinayo ma leh allihii subxaana qaadirka ayay mahaddaas u sugnaatay inuu ilaahay dhibaatadii ogaantana isoo mariyo maantana ilaahay iga caawiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kulli shay qadiir alxamdu lilah marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo walaalahay ah iska ilaaliya waddankaad ku dhalateen ma aha systemka xagga ka jiray iyo systemkan waa kala yahay marka ha aaminina qof kasta ha aaminina aniga say ugu dhacday haysay idinku dhicin dad waxaa jira oo ma aragtaaye aada u malaysanaynin laakiin ummado kale la shaqaysto iska jira dad wada ruufiyaa ma aha jiro oo ma aragtaaye haate warkaada ana sax u gudbinaynin haata waxaad ku tiraahda sax aan u gudbinaynin waayo qofka xarashaaba laga yaabaa inuu ku hayo 100 kale ku daraa iska ilaaliya taas iska ilaaliya waa Soomaali hadhina dadkan ad arkaysaan wada yaacaya ama haata ha ku jiraano YouTube live ha ahaato dadkan oo ku jiro YouTube kaba ha ahaato dadka kale ha ahaato waxyaalahan ummadan yaacayso ummad fiyow ma aha ummadan ummad la wada wato waaye iska ilaaliya yasal lida shirqoolin gabdhow ragow yaa lida shirqoolin shirqool baa jira yaa lida shirqoolin shabagara ha ku ridina ha ku dhicina shabaga ha ku dhicina iska ilaaliya iska ilaaliya insha allah ilaahay waddankeena nabad ha nooga dhaliyo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay waddankeena nabad ha nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu waddankeena noo dejiyo meesha aan joognana allah nagu ammaansado ilaahay idinkiisa ubadkana ilaahay noo badbaadiyo ilaahay kuwa caafimaad qabana alla nooga dhigo meel walboon taagannahay oo ma aragtaay annaga magaca guud Soomaali oo idilba ilaahay ha ku badbaadiyo meel allah meesha joogto ilaahay na badbaadiyo ilaahay asaga dadka badbaadiyo ilaahay na badbaadiyo waana idin salaamaya insha allah anigana faatixadaha la soo maro waana idin salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh